عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. waxaa laga wariyey amiirkii mu'miniinta Cumar bin Khattab allaha ka raali noqday inuu yiri: waxaan maqlay nebiga sallallahu calayhi wasallam oo leh: camalku waxaa saldhig u ah niyadda, qof kastaana wuxuu helayaa niyaddiisa. marka qofkii u hijrooday Ilaahay dartii iyo rasuulkiisa wuxuu helayaa ajar Ilaahay. qofkii u hijrooday inuu adduunyo helo ama haweeney uu rabo guurkeeda, isana waxaa lagu abaalmarinayaa niyaddiisa oo Ilaahay ka sugi maayo abaalgud. Bukhari iyo Muslim.